waxaa magaalada Qalaafe ka qabsoomay kulan la yeeshay dhammaan shaqaalaha unuga asaasiga xisbiga barwaaqo ee degmada Qalaafe ee gobolka Shabeelle waxaana ka soo qayb galay wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah injineer Muxiidiin Cabdi gudoomiyaha gobolka Shabeelle mudane Aadan Axmed iyo maamulka degmada Qalaafe kulankan oo hal ku dhig looga dhigay aan huwano astaamaha ina mideeya ana ka fogaano kuwa ina kala qaybiya ayay mas'uuliyiintan iyo shaqaalaha unuga asaasiga xisbiga barwaaqo ee degmada Qalaafe ka doodayeen xaaladda guud ee dalka sidoo kale kulankan ayaa diiradda lagu saarayay sidii hal dhinac looga soo wada jeesan lahaa shakhsiyaadka raba inay carqaladeeyaan amniga dalka iyo ka deegaanka san yahay bal horta maadaama aad tihiin idinku shaqaalihii ama laf dhabartii degmada aadna ka mid tihiin xubnaha ugu muhiimsan ee uu ku dhaqdhaqaaqa deegaanka xisbiga barwaaqo asagoo kaashanaya shacabkiisa iyo mas'uuliyiintiisa dhammaan looma kala harin waxaan wada ogsoonahay mas'uuliyiintii xubnaha ugu sareeyay in ay ka qayb qaateen oo ay tageen meelihii ay dagaalku ka socday si ay dhiirigelin u siiyaan xubnaha amlaamaha amniga ah ee waqti xaadirkaas ku howlanaa sidii loo sugu lahaa amniga dalka waxaa haddaba dhacday in xisbigu mar kastana ay tahay halqabsigiisa in dhacdo kaste oo dalka ka dhacdo lagu dabaqo ama lagu xaliyo xal nabadeed wada hadalne waa waxa kaliya ee dadku isku fahmi karaan heshiisna lagu gaari karo waxa marka laga maarmaana guud ahaan dalku waa 76 qowmiyadood qowmiyadaha dalkeena ku dhaqan qowmiyadaha dalka ku dhaqan waxa ay ku midoobeen waa nidaamka iyo dastuurka xaaladda hadda aan u fadhino waa guud ahaan marxaladihii ina soo mareeyay isbedelka kadib dalkeena cadaadis bulsho mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba ayaa haystay bulshada nafiskii siyaasadeed iyo nasashadii la helay ayaa waxay keentay in yacnaha cid walba ay dhibaato abuurto xaaladaas ayaa keentay marka inaan kulankan laga doodsiinayo xubnaha hogaaminta degmada iyo xubnaha xisbiga degmadaba tan kale kooxda fana sideedaba waxay diidan tahay federalismka ama dalkeena hadda uu ku jiro ee ah deegaan walba iyo qowmiyad walba in afkeeda ay ku hasho isku xukunto iskuna maamusho ee lagu heshiiyey dastuurka qaranka ayay duminaysaa oo waxay doonaysaa in dib ay u celiso xiriirigii xumaa ee markii hore lagu jiray ee ah keligii tashanimada okay kooxda fana waxaa kale doonaysaa in ay ayagu xukunka la wareegaan waayo markii hore xisbiga amxaarada wuxuu ka mid ahaa xisbigii BB wax ka dhisay kana hagaajiyey hadda waxay dib u doonayaan inay mar labaad ayagu si gaar ah xukunka dalka dib u qabtaan maaha waxay wax kale u samaynayaan ka fikir ahaan marka haddii aan ka hadlo kolley deegaanka Ethiopia hadda meeshuu maraya waan naqaanaa meeluhu soo mari jireen waan naqaanaa waxaan doonaynaa inaan hore u sii soconno mooyaane inaan dib u noqonno hadda aan u noqonno keligii tashanimadii iyo ma garanaysaa ciriirigii hore aan ku jiri jirnay looma baahna federalismkana haddii laga baxo waxaa imanaya caqabado fara badan iyo dhibaatooyin dadka la soo dirsaa